dila booraba ilaahay bay aan hadle inagu sameeyaan maanta wajigii ugu dambeeyay bilowno kaasoo ay bixinayso xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland aaminayo madaxweyne Axmed Maxamuud iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici runtii waxa marag ma doonta inaan xukuumadda maanta jirta aanan dariiqa lagula murmin xukuumad hore Ingiriis tii Soomaalida iyo xukuumadii hore ee Soomaaliland dhagax ku sheegan maayaan xukuumadda maanta joogta dhagax kuba sheeganayaan xukuumadaha hore ee isa soo maray ilaa 40 sanado soo ugu dambeeyay xukuumaddan ayaa wixii shacab sameeyay maaha wixii kala dhanna dhamaystirtay mahad weyn baan u celinaynaa ilaahayna ha ka abaal mariyo ta kale waxaan u dhaafayaa odayaasha assalaamu calaykum madaxweyne maxamed maxamuud siyaayo iyo xukuumaddiisa kuwaasoo hirgeliyey himiladii dadka reer awdal ay lahaayeen ee raagtay hirgeliyey ciddii wax waara qabata magaceeduna wuu waaraa waxaa la yidhi waxaa dhulkan ka talin jiray dowlad ajuuraan la odhan jiray baa la yidhi waxay 1560kii 100 sannadoodna way xukumaysa baa la dhulka ilaa hadda ceel ajuuraan baa la yidhaahdaa ceelasha ay qodeen waaga markaa waxaan u malaynayaa tanna waddooyinkani inay noqon doonaan waddooyinkii xukuumadda Axmed Maxamed uu madaxweynuhu u dhisay oo la odhan doono waddooyinkii wadda siire iyo in la odhan doono malin doona insha allahu tacaala waan ku mahadinaynaa waan ku hambalyaynaynaa waayo waanu ummaddana wuu qabtay waanu isku qabtay marka waxaan leenahay mahadsanid maanta waxaa noo farxada waddadii himilada ahayd oo maanta hirgashay waddadii riyada ahayd oo rumowday labadii dhinac ee muddo galbeedka ka yimid muddo beriga ka yimid oo maanta isku muuqda oo halkaa iska arkaya aan rajaynayna inay dhowaan isgaari doonaan oo xiriirami doonaan taasaa mahadnaqa waad mahadsantii dhinacan dila iyo boorama waxaanu hadhay 6 kilomitir 5 kilomitir madaxweynaha ayaa magaranaysaa ballan qaaday uu nagu amray inaan samayno 1 kilomitir waxay u taallaa magaranaysaa sarda ilaahay idankii bilowga iminka aan bilownay dhammaadkii wasaawa ayay noqonaysaa dowladda Soomaaliya waxaanu mahad celinaynaa madaxweynaha wasiirada golayaasha iyo xisbigana waxaan ugu mahad celinaynaa dee waxay qabteen baan ugu mahad celinaynaa oo runka iyagana ilaahay jazaaya aakhiraha ka siiyo ifkana magac iyo sharaf iyo maamuus bay ugu tahay annaguna waxoogaa sadaqa ayaan xoog iyaga ula baxnay ilaahay annagana ajriga iyaga hanaga siiyo haddaan nahay ururkaa sarda marka arrintaa taa iyada waa ku guulaysanay wixii dambe la qabanayana kolley dad iyo dowladba wax loo tashaday noqon والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحرنتي هذا عن شغلنا. 5 كيلومتر وسيرك ملحتويد وبقى حد جاي. وأنا 5 كيلومتر وجودن بيجي. وحنا لنا رنهانتي. سومالنا دولة سومالنا حديك تكتي. وواحد يقول تكتي. تذكر رنهانتي نولان دولة شن بقول الصنوات يوحق بنا. أسدنا ده حديك تكتو. هي المسألة الأجل جاي بدون تذكر نولان دولة شن بقول الصنوات طريق الرعاة الله يسود بدين دول. وحنا لقي مدحوين السيارة مدحوين السيرانيو إسراع شو جوشة كان وضع ما يسترتي مدحوين وحنا جعلنا هاي ككلاء طريق لو يعديو يسكحوا لي يجوتنا إن هذا حنا دكتور أو كنترول كبورما أقبله وحنا ننتج وحصينا ونبلن أسد أي قاعدة جوان قاعدة إن كابت طريقا أي وصل ما يصف كابت تاريخي وقرص إن وقت الدولة ده الماضي كي السيرانيو يكون جوليستي وحيكون جوليسون وين دولتي كهر يرنات وأنا تاريخ وأنا خوق قرينا غير أول بخوق قرينا أنا جالس خوق قرينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكومة الصوماليلاند يا أحمد محمود سيلاي ومدحكيه يا عبد الرحمن عبد الله السيلعي هذه أبان نقوم حدنا قينا سيد الله الشيعي وحكومة كلية جيت كبور مضيرة وإحنا جل قبطي هدي عن الشعب قلنا هاي أنا أقول حواسي 1 كيلومتر بانو قرف نبي iyadoo oo shacbiga intiisii kalena aan u foorarsanayno yaa xukuumaddu waxay naga ballan qaaday in hawsha qabanayso waanay fulisay hadda imika waxa dhagaxa maanta halkan la wadaa
inta 5 kiiloomitir ee u dambeysay ee uu dhagaxa dhigay wasiirka madaxtooyada oo runtii aan tirsanayno xiriiryaha koowaad inuu yahay gobolka awdal iyo xukuumadda hawlaheeda goorba uu jijibaaray oo aad noogu jilicsan yahay in maxay hayday uu dhagaxa dhigay isagoo ka wakiila xukuumadda Soomaaliland ka wakiila ayaa hadda nimka maanta Camuudi adarkiisaan agafidiina ay ku jiraan awalan mahad ilaah baa subhanahu wa ta'ala laakiin kama abaaldarayna xukuumadda iyo talaabada ay ka qaaday qaybta wadada ay ka qaaday sidaa saaxiibadii ay ka dhawaajiyeen kama maarmayno oo kulli oranayno waa 5 kiiloomitir ugu dambeysay ma oranayno waxaan wixii hawlaha ee ay maxay hayday wad asarda ay qabanayso kulli waxaan shacbiga u sheegaynaa xukuumadda Soomaaliland inay qayb weyn ay maalinka maanta ay ka tahay hay'adda asarda waa hay'ad shacbiga awdal aw leeyahay oo cid gaar ah ayna maalinka maanta aanay jirin haddii inta badan ay ka muuqdaan shaqada oo iyadana ay ka muuqdaan barito kolkaanu daallo kuwa annaga nabamida waanu jecelnahay in iyagu naftooda ay qabtaan hoggaanka ay u qabtaan ma aha waxa anagu aanu jeclaysanayno inta yadana inaanu maxay ahayd ku ekaano hawaan jeclaysanayno ma aha waa hawaan jecelnahay kolba inta mukhlisiina ee daacad ah in loo dhiibo waana in ummadda lagu aamino xilka la saaray dadkuna waa in kalsooni ku qabaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.